deegaanka degmada Dila ee gobolkan Awdal ayaa laga soo sheegayaa qayladaan ah in biyo la'aan ay soo wajahday dadkii ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaanada gobolada Somaliland waxaana la sheegayaa in meelihii barkadiya ay biyaha ka cabi jireen ay gudeen taasina ay keentay in xoolihii iyo dadkiiba ay biyo la'aan ku dhacdo sida awgeed ayaa maamulka degmada Dila oday dhaqameedyadu ay baaq u jeedinayaan in lala soo gaadho biyo ay cabaan dadkaasi iyo xooluhuba isticmaalaan isla markaasina gurmad loo soo fidiyo dadkaasi ku soo ayaamay deegaanada degmada Dila iyo hareeraheeda waxaana arintaas ka hadlaya maayirka degmada Dila Ibrahim Cabdi Xaaji iyo oday dhaqameedyo kala duwan waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan baaq iyo qaylo dheer ka dirayaa dadweynihii ku soo qaxay degmada Dila ee soo guurtada ahaa oo runtii aan ognahay horena u sheegnay inay dhibaatooyin badan qabaan dhammaan way dhamaadeen ballayadii caawinayna waa dhamaadeen haddaan sida ugu dhaqsaha badan loo soo gaadhin khatar bay leedahay khatar wax la cunana ma haystaan ka haddaan hadda loo soo gurmanin oo biyo wax la cunana lala soo gaadhin ma jiraan waxaan baaq dheer u dirayaa hay'adaha iyo guddida abaaraha ee heer gobol iyo heer qaran haddii aan sida ugu dhaqsaha badan loo soo gaadhin dadkaasi khatarteeday leedahay waxa ugu daranina qodobka koobaad waa biyo haddii atiin guddida abaaraha waa dhaqso dheeldheel maahina waa dhimasheena dhaqso wax nala soo gaadha haddii wixii la karo qaybta koowaad iyo talabaad baa lagu daro Awdal oo degmada Dila deegaankeeda lagu daro aad iyo aad baa loo jilicsan yahay way baqtiyaan waxaan oranay degmada Dila wali baaq inta leeg may dirin maanta ka hor guddida abaaraha iyo dawladaba in hadii aad maayo gurmad degdeg la soo gaaro dhanka kale maamulka degmada Dila iyo oday dhaqameedyada deegaankaasi ayaa u mahad celiyay xukuumadda Somaliland oo fulisay ballantii ay u qaaday deer lagaga xidho ku soo fataa degmada Dila oo horena khasaarooyin kala duwan u geystay waxaanay sheegayaan in deerkaasi ay xukuumaddu si fiican u fulisay gaar ahaan wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ballanqaadkii ay sameeyeenna ay ka soo baxday imigana ay deyrkii dhammaystireen gurmadkii madaxweynuhu uu noo soo sameeyey ee uu yimiday Muuse Biixi Cabdi deyrkii ay noo ballan qaadeen iyaa la dhisay wadinka arkaya si fiican buu socdaa aweyne Muuse Biixi u taagani ballantii ay noo qaadeen way fushay deyrkii wax yar baa ka harsan laakiin taasi way noo fushay Allah ma hadle dadkii koowaad aan ku kulanno una fuliyay arrinkii noo ballan qaadayna waa la fuliyay hore ayay wada laamiya uga fulisay bartamaha degmada Dila iyada oo hawlo kale oo dhinaca biyaha caafimaadkana wax badan ka qabatay waa caafi TV-ga qaranka Somaliland deegaanka degmada Dila ee gobolka Awdal